boqortooyada Mongol Empire Tatarku waxay ahayd mid kamid ah boqortooyooyinkii ugu ballaarnaa ee taariikhda dunida waxayna hanatay dhul ballaaran waxayna ka iba furantay bariga Aasiya iyadoo gaadhay bartamaha iyo bariga Yurub goobaha ay hanatay waxa kamid ah qaaradda Aasiya oo ay qabsatay qaybo kamid ah Shiinaha, Ruushka, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, Afghanistan, Iraq, Iran, Syria, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Pakistan, India, qaybo kamid ah Vietnam, Korea, Japan. Yurub waxay qabsatay qaybo kamid ah Poland, Hungary, Romania, Bulgaria, Serbia iyo Croatia qaar kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee adduunka ay xilliga qabsadeenna waxa kamid ah Beijing oo Shiinaha caasimadu ah, Baghdad oo Iraq ah, Kiev oo Ukraine ah, Moscow oo Ruushka ah. Dagaaladii ugu caansanaa ee Tatarku la galeen muslimiinta waxa kamid ah dagaalkii Khawarsim 1219 ilaa 1221. Genghis Khan ayaa weeraray boqortooyadii Khawarsim oo ka dhisnayd Iran iyo Afghanistan. Dagaalku waxa uu sababay dhimashada boqolaal kun oo qof waxa uu muujiyay awoodda militari ee Tatarka. Dagaalkii Baghdad 1258 Mongoliyaanku waxay weerareen caasimadda Islaamka ee Baghdad oo ahayd mid kamid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna awoodda badnaa adduunka xilligaas. Dagaalkan ayaa dhaliyay burbur weyn oo ku yimid dhaqankii, farshaxankii iyo cilmi baarista Islaamka. boqolaal kun ayuuna galaaftay. Dagaalkii Ayn Jalut 1260 dagaalkan ayaa u dhaxeeyay Tatarka iyo mamaaligtii Masar waxauna ka dhacay gobolka Ayn Jalut ee Falastiin. Mamaaligta Masar ayaa guul weyn ka gaaray dagaalkan waxayna soo afjareen isku daygii Mongoliyiinta ee ku aadanaa inay qabsadaan dhulka barakaysan ee Falastiin.